xalqadii hore waxaa noogu dhammaatay wiilkii saacada fiirfiirinaya oo eegaya bal waqtiga soo dhowday gabadha dhimashadeedu. laakiin gabadha dhimashadeeda daqiiqaduhu u qoondeeyay way dhaaftay, saacadihiina way ka gudbeen, wuxuuna dareemay wiilkii nasasho yar soo maha. xalqada xaggaas noogu dambeysay. xalqadiiba nooga sii waday asxaabi ee fal muuqaalka like saara, kanaalkana kusoo biiro subscribe saaro, eedhkana ugu tuura. iminka inoo bilaabo xalqadan xigta. xalqadan maanta waxay ku bilaabmaysaa wiilkii oo gabadhu yimid xilli subaxa, wuxuuna arkay iyadoo iminka soo toostay. markii albaabka ka furtay ee aragtay wiilku yar faraxday. kadibna waxaa dhacday inay iskuulka yimaadaan. macallinkii hoogi Master Yashuro ay wuxuu ku codsaday inay la qaadaan qalabka jimicsiga ee yacni jiimta ah. kadibna way la qaadeen, waxayna aadeen dukaameysi. markay iskuulka ku soo laabtaan ayaa waxaa loo dhigay xaflad yar, ardaydii inay ku farxiyaan. macallinkana wuxuu keenaa keeg. kadibna gabadh waxay tiraahdaa igaraale ahaada inaan dhawmo doonayo ee fadlan iska celiya keegiina, mana rabo inaan yacni ii samaysin wax dhalashaa. markaasa macallinka ku yidhaahdaa may waa mahadsan tahay, anaga ayaa kugu talagalnay keegan ee ku farax, maanta waa maalintii farxadaada ah ee dhalashadaada. kadibna gabadh waxay bilaabay inay ka qaadato. kadibna wiilku wuxuu soo kaxeeyaa dhanka gurigeedii, wuxuuna siiyaa mara yar oo qoorta lagu xidho si ay iskugu diiriso. kadibna wiilku wuu soo macasalaameeyaa. habeenkaasna wuxuu seexdaa si degan oo isagoo waxba ka welwelsanayn. laakiin maalintii xigtay wuxuu ka soo toosay hurdadii isagoo weliba daahsan, wuxuuna si degdeg ah ugu soo cararay dhanka dugsiga, balse wuxuu maqlin gabadha Kiyo aysan iman guriga. maalin ayaa dhaaftay, mid kale ayaa ku xigtay. Kiyo gebi ahaanba way joojisay imaanshaha dugsiga. balantay wada qaadeen ah inayna dugsiga aysan jirinna waa ay jabisay. Saturn wuxuu dareemay qalbi jab iyo shaki ayaa ka muuqday gurigeeda, wuxuuna hawiyey bakhaarka gadaashiisa yaal, balse wax ma yeelin. si kastaba wuxuu arkay calaamado muujinayo inay dhowaan halkaas joogtay gabadha. gudaha gurigana hooyada Kiyo dhashay iyo saaxiibkeeda ayaa ku murmuyay guriga arrin la xiriirta meydka Kiyo. inkastoo Saturn uusan si toos ah u arkin arrintaas, haddana aad ayuu uga naxay, wuxuuna dugsiga ka maqnaaday 2 maalmood. inta lagu jiray waqtigaas wuxuu maqlay hooyadii Sachiko oo qof la hadlaysa, waxayna ka hadlayeen booliska oo ay weli ilaalinaya guriga Kiyo. markuu dugsiga ku laabtay, macallinka Master Yashuro wuxuu fasalka u sheegay in Kiyo ay u tagtay awowgeed, laakiin ardaydu ma aysan rumaysan. Master Yashurona wuxuu dhinaca u yeeray Saturn, wuxuuna ka codsaday inuu sheekadaas la socdo si argagax looga yareeyo ardayda. booliska ayaa sii waday ilaalinta guriga Kiyo iyagoo ka shakiysan hooyadeed, laakiin ugu dambeyn gabadha kale ayaa la afduubtay. markaasna boolisku waxay wareegeen kiiskaas cusub. maalin maalmaha ka mid ah, Master Yashuro wuxuu ardayda ku amray inay guryahooda ku laabtaan, waalidkoodana inay laabtaan. intuu Saturn la socday saaxiibkiisa Kenya, ayaa Kenya si hoose ugu sheegay in gabadha yar miskiinta marka labaad la afduubtay gabadha Kiyo ka dambeysay iyadoo iska baxsan ee la afduubtay. maalmuhu way socdeen, gabdhuhuna waa la afduubanay. booliskuna waxay joojiyeen ilaalinta guriga Kiyo. maalin uu Saturn marayay guriga Kiyo, wuxuu arkay hooyada oo si la yaab loo qoslaysa iyadoo wax tuuraysa. isagoo yaaban oo walwalsan ayuu u cararay, wuxuuna helay hooyadii Kiyo oo u diyaarsay saaxiibkeed hadiyad oo aysan weligeed gudbin. markuu taas arkay, Saturn qalbigiisu waa burburay, wuxuuna orday isagoo ilmeynaya. si lama filaan ah wuxuu isku arkay inuu kusoo laabtay waqtiga hadda. kadibna isagii Ari waxay hoos tageen boondo, waxayna bilaabeen inay wada hadlaan. Ari waxay u sheegtay Saturn wax ku saabsan caruurnimadeeda. kadibna waxay tagtay gurigeeda si ay u soo qaaday wiilka dhar. iyadoo dharka ku ridaysa boorsada ayaa waxay sigtiisa u aragtay fariin la yaab leh oo ka timid telefoonka hooyada Saturn. fariintaasi oo ah waa saxan tahay, halkaas joogaan kugu iman doonaaye. Arina waa naxday, laakiin Saturn si degdeg ah ayuu u fahmay in dilaa uu daba joogo iyada. isla markaasna qof ayaa garaacay albaabkeeda. waxay isku dayday inay baxsato, laakiin cabsi darteed waa ay suuxday. daqiiqadaas Saturn ayaa yimid si uu badbaadiyo iyada. wuxuu arkay iyada oo miir leh, wuxuuna bilaabay inuu soo qaado oo halkaas ka soo saaro. inta uu ka fikirayay siduu hoos ugu soo daadegi lahaa, ayaa meesha waxay yimaadeen milkiilaha dukaanka biisaha. wuxuu bilaabay inuu caawiyo. markuu ka soo saaray dhismaha, wuxuu ku yidhi Saturn inuu baxsado, waayo boolisku kaa shakin doonaan. anigu waan ku aaminayaa, waxa lagu malay in adigu dishay gabadha. kadibna Saturn wuxuu eegay telefoonka, wuxuuna arkay fariintii loo soo dirayay hooyadii oo kale. wuxuu ogaaday inuu dilaagu u yimid Ari si uu iyada u dilo. markaas ayuuna go'aansaday inuu isagu soo bandhigo dilaaga dhabta ah inta uusan booliska soo qaban isaga. markaas wiilku waxa la kulmaanay ninkaasina wuxuu ku yiraahdaa anigu hooyada imay soo sheegin waxba, kamana warhayay, laakiin hooyada buu xasuus qar ay ka tagtay, buuga xasuus qarka laga yaabana sare ka helno. wuxuuna yidhi hooyada markii ugu dambeysay way soo garaacday, waxayna ugu tiri dilaaga dhabta la qabtay ma aha wiilka Yuki ee waa qof kale. laakiin intay ii sheegay dilaaga dhabta ah ayaa waxa dhacday in hooyada loo yimaado kolka yarba oo nafta xaga lagaga jaro ay hooyada xaga ku geeriyooto. ninkiina wuxuu bilaabay inuu sharaxo sida Kiyo loo dilay. wuxuu sheegay in sabtidii habeenkeedii in gabadha yar Kiyo hooyada si xun ula dhaqmisay oo ay garaacaysay. kadibna gabadha yar soo kaxaysay, waxayna soo gelisay bakhaarka oo halkaas ay ku daysay markii ay saacadu 10kii habeenimo. kadibna gabadha yar xaga kaga tagtay. gabadha yarna wuxuu dhimatay qabow daran oo bakhaarka darteed maalmo lagu xidhayay. xagaasna waxaa dhacday in ku geeriyooto gabadha yar miskiinta ah. kadibna waxaa la qabtaa ninkaasna waxa loo yaqaanaa
John. Sababta John loo soo qabtay waxay tahay waxaa meesha laga arkay buudkaasina isaga ayaa lahaa. Kadibna askarta wuxuu noqday intaas caddayn oo ninkii waa la soo qabtay. Waxaa lagu bilaabay dambi baaris. ninkiina wuxuu idhaahdaa aniga waxaan iga codsanayna aniga ay igu malaynin qofka dilaaga dhabta ah. Anigu waxaan ahay qof iska miskiina oo beeraha iska qorta. waxaan rumaysanayna aan ahayn dilaaga dhabta ah. wuxuuna dhahay dilaaga dhabta marka koobaad gabadh yar bakhaarka ay ka soo saaray. kadibna wuxuu keenay banaankii. kadibna biyo ayuu gabadh yar ku shubay dhulku baraf yahay. kadibna wuxuu ku daayay banaankii gabadh yareed ilaa ay gabadh yar daciiftay. xaggaasna baraf darteed ugu dhimatay. 30 daqiiqo kadibna gabadh yar miskiinta xaggaasay ku geeriyootaa. tana waa aragti keliya oo anigu aan qabo ma aha wax caddaynana uma haysto. kadibna wuxuu idhaahdaa dilaaga dembiyada kala geysanayna waa isla hal dilaa. dad kale ayaana lagu masabidayaa marka isaga uu dhinto. dadka masaakiima way dulman yihiin ee fadlan boolis isku hubiya inta aadan dadka ku eedayn dembiye aysan weligood iyagu geysan. daqiiqad kastoo qof aad soo qabatin miskiinana waa daqiiqad kastoo ninka kasii fogaanayo. waxaan laga yaabaa in weli magaalada nugula nool yahay ee fadlan iska taxad. dhanka kale gabadhii aari waxay isku dayday inay dukaanka ka baxsato. laakiin iyadoo ka baxsaysa waxay aragtay askartii dibadday taagtaagan. markaase iyadoo gabadh meesha taagan ayaa garabkeeda waxaa taabtay qof. qofkaas iyuu yahay gadaal baa usoo laaban doonaa. aan kusoo noqono wiilkii ninkii ka sheekeynaya qisada. wuxuu idhaahdaa ninkaasi hooyada inta aysan dhimin ninkaas sawir ay ka qaaday gaadhigiisa oo taarikadiisii gaadhigiisuu eegahee sawir ahaan uga qaaday. ninka dilaaguna uu ka shakiyey hooyadaas sidaas ayuuna uga takhalusay oo u dilay. markuu maqlin gabadhii aari ay boolisku qabteen ay wuxuu soo aadaa dhankii booliska. intuusa soo bixin ayaa wiilkii satir wuxuu u dhiibaa qoraalo ay ku saabsan yihiin dilka gabadhii yarakii miskiinta ahayd iyo kuwo kale lagu tuhumayo inay dileen kuwaas. warbixinta wiilku akhrinayana waxay tusay nin la yaraahdo Juunu iyo caddaymo laga helay qolkiisa. laakiin satur wuxuu hubay in caddaymahaasi ninkaas lagu soo eedeynay Juunu ay yihiin been. dhan kale ninkiina wuxuu codsaday inuu isticmaalo masqusha. wuxuuna arkay qol aan lahayn calaamad magac taasoo ka dhigan in aari halkaas ku dhuumanayso. wuxuuna ku mashquuliyey booliska. kadibna gudaha ayuu u galay. halkaasna wuxuu ka arkay aari iyo hooyadeed oo ogolaatay inay caawiso kadib markii aari wax walba u sharaxday. yacni markii hore way ka baqayeen ninkan oo gabadhan yarba hooyadeed wax walba u sharaxday. haddaba waxaas leeyihin maxaa lagu haystaa gabadhan aari gadaal ayaa ka ogaan doontiin ilaa heer socda asxaabi. kadib aari waxay wacday Satuuro waxayna ka codsatay inay kulmaan. Satuurana wuxuu isku dayay inuu ka joojiyo inay timaado. laakiin iyadu way ku adkaysatay iyadoo sheegtay inay taxadari doonto. markii guriga ka baxday qof ayaa bilaabay inuu daba socdo. dhanka kale Satuuro wuxuu u soo baxay dhanka ay ku ballameen iskugu yimaadaan meeshaas oo ah boondo hoosteed. aarina way daahday wuxuuna damcay inuu iskaga tago meesha. laakiin waxay timid waqtigii ugu dambeeyey. waxay bilaabeen inay wada hadlaan. aari waxay sheegtay waxay ka shakisaneed inay rumoobeen waxaasi oo ah in wiilkan hooyadii uu dilay nin kale ee uusan dilin wiilka miskiinka ee la dulmiyey loo yaqaano Yuki ay saaxiibka ahaayeen wiilkan. markuu wiilka maqlo magaciisana waxaa dhahay inuu wiilka yar walwalo oo idhaahdo bilow qofkaasaan ka fiirsanno qofkaas ma aha malehe. isla markaas booliska ayaa yimid si ay u qabtaan Satuuro. wuxuu isku dayay inuu ka baxsado laakiin waa la qabtay. aarina waxay booliska u sheegtay inuusan wax khalad ah isagu samayn. Satuuro wuxuu sheegay aari inuu ku faraxsan yahay inay isaga ammaantay. wuxuuna ballan qaaday inuu xal heli doono uu kaga soo baxdo jeelka. intii la kaxaynayay wuxuu arkay nin dhuumanaya. kadib ninkii markuu arkay wuxuu ogaaday wiilka inuu yahay dilaaga dhabta ah. isla markiiba kahor inta aan wiilka lagu ridin gaariga ayaa Satuuro si xoog leh ayuu u qayliyey isagoo doonay inuu dib ugu laabto. maanta marka intaas asxaab ku soo qulaasay maanta xalqadii kale waxaan wadaa xalqadii 6aad weeyaan anime waa 12 xalqo markii 6 xalqa soo qulaasay hadda 6 kale oo hadhan 6 kalena waana soo dhaqsan doonaa fadlan muuqaal kale saara kanaalkana ku soo biiro 8k baa milyan raay subax walba ku riyoona 8k anagoo galnay marka asxaab 8k nagu tuura inagoo ma kun jeer mahadsan marka asxaab intaas nagu caawiyo 8k nagu tuur waxa ka laga yaabaa waxa ka dhimo malaha 850 meelahaas ayaaba yani nagu qof dhiman 850 qof oo kaliya muuqaalkan waxa laga yaabaa in 2000 ilaa 3000 qof taawadaan marka 850 oo kaliya nagu dhimo 8k kanaalkayga horena 8k isagoo maraya laga bangareeyo ogtii marka saacadaha baan igu codsanay like tan muuqaalku saddex ka siiya kanaalkan ku soo biiro subscribe saara مع السلامة وأشوفكم في حلقة جاية.